السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحرن جنالك مركل السود وهذا أدي هذا ما سنتيه وقال كانوا حرب أنا ذو كل وذاقو شكل ياب له أمريكان ككدعدي واحد مقل جرتين نين أي حاسكي سكتجي أو ناكل كراعي سلامر كان سداس وقد دقائق أرنتها سلم ذا أمريكان ككدعدي أو أرن لياب له أي ربع أنا ذي له وذاقو هرانتي بشي أغسطس السديدات ayaa nin xaasla ah oo 3 caruur ay u joogto 2 gabdhood iyo wiil ayaa hal mar la waayay. Ninkan magaciisa waxa la yiraahdaa Ryan Borgward, waa 45 jir ayuu ahaa. Ninkan sababta loo waayayna waxa loo maleynayay in uu dhintay. Ninkan waxa uu qaatay doomo yaryar oo nooca kayak loo yaqaano Green Lake la yiraahdo oo ku taala Wisconsin ayuu aaday. Wuxuu yiri waan soo kalluumaysanayaa. markaas kadib ninkii waa la waayay. Waxa la arkay haradii ama leeygi ayaa waxa lagu arkay doontii yareed uu watay oo gadoontay. Marka waxa la isiri ninkan biyahan ayuu ku dhacay uu ku qaraqmay, sidaas ayuu ku dhintay. baadi goob ayaa la bilaabay in xitaa kooxaha quusa leegaasina waxay tahay midda ugu deebsan amaba ugu dheer dhanka gunta hoose marka la yiraahdo. ninkii sidii loo raadinayay waa la waayay, nolol iyo ruuxba waa lagu waayay. markaas kadib boolisku baaritaan kale ayay sii sameeyeen oo ninkan waxa la ogaadayba in uu wadanka isaga baxay oo uu wadan kale oo Yurub ah oo South Asia aynaade koonfurta Asia ku yaala uu aaday oo Uzbekistan la yiraahdo. ninkan marka sababta uu baxayna waxa ahayd haweeney kale oo Uzbekistan u dhalatay laakiin afka Ruushka ku hadasho ayaa waxa la leeyahay wuxuu ka shukaansanayay online uu ka kala sheekaysanayay, sidaas darteed ayuu u baxay. marka ninkan si aan loo ogaanin dabagal aan loogu sameeynin ayaa waxa uu sameeyay waxyaabo la yaab leh oo loo maleeyo in uu dhintay. ninkan waxyaabaha uu sameeyay waxa kamid ah horta baasaboorkiisii ma uusan qaadan oo waxa uu uga tagay gurigiisa ayuu uga tagay. sidoo kalena telefonkiisii biyaha ayuu ku tuuray leeyga markii uu doonayay inuu baxo. markaas kadib baaskiil elektrooniga ayuu qaatay oo wuxuu ku tagay ilaa iyo magaalada Madison ayuu ku tagay. waa markii dambe booliska baaritaan ay ku sameeyeen sida ay soo ogaan doonaan. Madison kadib bas ayuu ka raacay waxaana uu ku galay wadanka Canada. baasaboor kale cusub ayuu samaystay inta uusan Canada aadin, kadibna Canada ayuu ka baxay oo waxa la ogaaday baasaboorkiisa mas'uuliyiinta wadanka Canada in ay exit ku dhufteen ninkaasi markii uu baxayay. ninkaasi kadib waxa uu sidoo kale qaatay lacag gaaraysa $375,000 oo caymiskii ay noloshiisa ku jirtay dadkan Mareykanka waxaan ognahay life insurance wax la yiraahdo galaan haddii qofkan uu dhinto in waxaaskiisa ama ilmihiisa ama waalidkiisa ama walaalihiis ay lacagtaasi ka faa'iideysan karaan. marka $375,000 ayuu qaatay sidoo kale oo caymiskiisa caafimaadka ahayd. sidoo kalena dhimashadiisa waxa uu ka dhigay qof dhintay ayuu iska dhigay laakiin ma uusan dhiman, wadankana waa uu ka baxay. waxyaabaha kale uu sameeyay waxa kamid ah in sidoo kalena lacagtan uu ku xawilay lacagta uu la baxay oo life insurance-giisa ahayd in banki account kale uu ku xawilay oo wadanka dibadiisa ah. sidoo kalena computerkiisa hardware-kii ku xirnaa dhan wuu la baxay oo replace garay. macnaha wixii ku kaydsanaa qofku boolisku way baarayeen soo maahan, waxdii qofkii uu la sheekaysanayay dadkii uu la xiriiray waxyaabihii oo dhan waa la arkayaa. markaas kadib waxa la leeyahay waxa uu xiriir la sameynayay haweeneydaasi wadanka Uzbekistan ku nool, iyadoo sidoo kalena computerkiisa Google-ka waxyaabihii uu ka raadin jiray search history-gii gabi ahaanba wuu tirtiray. macnaha qofkan waa la ogaan karaa muxuu baarayay wadanka sida looga baxaa, waxyaabahaas miyuu baarayay oo Google-ka ka baarayay ayaa la ogaan lahaa. marka boolisku markii dambe marka ay baaritaankoodii dhamaystireen warbaahinta ay la hadleen waxay yiraahdeen ninkaas ma uusan dhiman, waa uu nool yahay, wadankaas Uzbekistan ayuuna aaday. marka ninkan muuqaal ayuu soo duubay 11kii bishii hore ee November, waa bil ka hor. muuqaal ayuu soo duubay oo booliska uu soo diray uu leeyahay aniga magacaygu waa Ryan Borgward, waxaan joogaa xilligan waxay idin tahay sida aan filayo Mareykanka ayuu leeyahay ku dhawaad 10kii subaxnimo. wuxuu leeyahay apartmentigan ayaan joogaa, waa nabad qabaa, wax dhibaato ah ma jiraan, waxaan filayaa inay intaas idinku filan tahay. haddaba muuqaalka markii uu soo duubayay muuqaalkan kooban ayuu soo duubay, bal ila arka hadalkiisa. 11kii November waa bil ka hor ayuu booliska muuqaalkan uu soo diray u cadeynayo inuu nool yahay oo uusan dhiman.
Good evening, it's Ryan Borgward. Today, hello, Matt. Today is November 11th. It's approximately 10 a.m. by you guys. I'm in my apartment. I am safe, secure, no problem. Hope this works. boolisku marka waxay ka codsadeen ninkan in uu qoyskiisa xilliga Christmaska iyo xilliyada fasaxa uu u yimaado uu dib u soo laabto. Ninkan marka shalay ayuu soo laabtay. Shalay markii uu soo laabtay kadibna boolisku waa ay xireen sida sawirkan aad ka arkaysaan. Ninkan waxa uu leeyahay xaas iyo 3 caruur sidaan ay sheegay. Marka baaritaankii la baadigoobayay oo inuu dhintay loo mareynayo oo ninkan harada laga baarayay waxa la leeyahay waxa ku baxday lacag gaaraysa ilaa iyo $40,000. marka ninkan lacagtaas waa inuu bixiyaa booliska iyo qarash fara badan ayuu galiyay oo baadikoobkiisii ku aadanayd. marka ninkan waxa hadda la leeyahay waa xabsiga ayuu ku jiraa sida sawirkan aad ka aragtaan oo uu xiran yahay dib ayuuna wadanka ugu soo laabtay. mas'uuliyiinta gobolka Wisconsin ninkan 54 maalmood ayay raadintiisa ku guda jireen oo ay raadinayeen ka hor inta aysan bishii November 8deedii aysan ku dhawaaqin ninkan in uusan dhiman isla markaana uu ka been sheegay dhimashadiisa. waxaana sidoo kale ay sheegeen in si ula kaca doontii yareed uu watay oo kaayaga ku sameynayay uu biyaha uu macnaha gediyay oo u muuqato in qofkan doontii intay la gadoontay oo biyaha ku dhacay. sidoo kalena taleefankiisa biyaha ayuu ku tuuray iyo waxyaabihii kale uu watay. waxaana sidoo kalena uu halkaasi ka qaatay baaskiil oo ilaa iyo 50 mayl oo xilli habeena oo magaalada Madison oo sidoo kale ugu safray. ninkan la yiraahdo Borgward sidoo kalena waxa uu haweeneydaasi Uzbekistan ayuu la hadlayay. baasaboorkiisana sidoo kalena waa uu qaatay baasaboor cusub bishii January ee sanadkan ayaana leeyahay lacagta 375,000 oo sidoo kale uu qaatay. marka ninkan wax contactiya ma uusan sameynin meel lagala soo xiriiri karo. sidaas darteed qoyskiisu sidaas ay boolisku waxay ku yiraahdeen waan la'nahay. sidaas ayaana baaritaanka markii dambe lagu bilaabay laguna soo gabagabeeyay markii la waayay. ka hor sidoo kalena intii uusan dhuumanin ninkan uusan wadanka ka bixin waxa uu bedelaa la leeyahay dhammaanba emailadiisa amaba email addresskiisa dhan ayuu bedelay oo bangigiisa ku xirnaa. waxaana sidoo kalena lacagta uu ku xawilay banki kale oo wadanka dibadiisa. marka bal sheekadan ka warrama ninkan xaaskiisa iyo caruurtiisa intuu ka tagay haweeney kale oo wadan kale ku nool uu aaday isla markaana uu iska dhigayba ninkan inuu yahay nin dhintay. laakiin haddana shalay oo talaadaha wadanka dib ugu soo laabtay markii uu ku soo laabtayna waa la xiray. dacwadaha lagu soo oogi doono ilaa iyo hadda lama oga oo waxa la leeyahay dacwado ayaa lagu soo oogi doonaa maadaama ninkan uu waqti iyo qarash galiyay mas'uuliyiinta gobolka Wisconsin isla markaana lacag $40,000 baadigoobkiisa ay ku baxday. ninkan isagana ula kacayo arrintan uu u sameeyay. waa tahay sheekada ninkaasi haddii halkaasi aan kaga gudbo waxaa laga digayaa roobab xoogan oo duufaano wato qaar ka mid ah gobolada Mareykanka. digniin xoogan ilaa iyo 8 gobol ayaa laga digayaa dadka ku nool oo la leeyahay duufaano iyo sidoo kalena koronto la'aan ayaa dhici karta. goboladaasi waxa ay u dhaxeeyaan laga soo bilaabo ilaa Maine ilaa iyo New York. waxaa sidoo kale loogu baaqayaa dadka in taxadir dheeraad ay muujiyaan gaar ahaan taraagleyda arrintan ka digtoonaada. waxaa goboladaas magaalooyinka ay laga yaabo in duufaanadan ay ku dhuftaan ka mid ah magaalada Philadelphia, New York City, sidoo kalena in Boston, waxaa ka mid ah Rhode Island, waxaa ka mid ah Hartford, Connecticut, Vermont, New Hampshire, Maine. dhammaanba goboladaasi oo idil waxaa la leeyahay maalmaha soo socda waxaa ka da'i doona roobab xoogan oo weliba duufaano wato koronto la'aan ayaa ka dhici karta. marka taraagleyda inta badan si indha la'aana ayaa iyagoo weatherka aan fiirin ay iska aadaan gobollo laga yaabo khatar inay kula kulmaan sida hadda dhacdayba bilihii u dambeeyay. marka arrintaasina ha laga digtoonaado. waa laga digayaa duufaantaasi roobabka wata weliba xilliga winterka ayaa lagu jiraa. waxaan ognahay in baraf badan oo gobollo qaar ka daaya hadda toddobaadyadii u dambeeyay oo dad badan ay ku xanibmeen shilal badan ay ka dhaceen. marka arrintaasina ha laga digtoonaado. aad iyo aad u mahadsantihiin asxaabta. intaan markale kulmi doono waa saaxiibkiin cilmi waaro idin la sidaa iyo nabadgelyo.